Bismillahirrahmanirrahiim kusoo dhawaada warkii cayaaraha oo idin akhriyo. Kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo afka ciid u dartay dhigeeda dekedaha kulan ka tirsan Somali Premier League oo shalay ka dhacay garoonka Engineer Yariso. Kooxda Juventus oo Bayern Munich ka dulqaadaysa saxiixa xiddiga Manchester City ee Leroy Sane. Inter Milan iyo Bayern Munich oo wada doonaya xiddig ka tirsan kooxda Manchester City. Lionel Messi oo ka mid noqday musharaxiinta abaalmarinta Sports Culture ee Barcelona. Angel Di Maria oo shaaca ka qaaday in uu iska diiday xirashada lambarka 7 xilligii uu joogay Manchester United. Ayuu Bernardo Fernandes ka galay xiddigaha Boortaqiiska ah ee ugu qaalisan horyaalka Premier League. Macallin Zinedine Zidane oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qayb galaya kulanka Real Sociedad Copa del Rey. Messi iyo Griezmann oo hogaaminaya liiska xiddigaha Barcelona ee ka qayb galaya kulanka Atletico Bilbao ee Copa del Rey. Qodobadaas iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idin akhri doonaa intaan warka ku kala jirno saaxiibayaal. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan. Kooxaha degada iyo Muqdisho City ayaa shalay galab kulan xiiso badan ku wada ciyaaray garoonka Engineer Yariso ciyaar ka tirsan horyaalka Somali Premier League. Kulankani ayaa ahaa mid aad u xiiso badan, labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan, balse qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 oo ay hogaaminayso kooxda MCC. waxaana u kala dhaliyay goolasha labada gool ay ku hormartay kooxda Muqdisho City Club Faisal Xasan Xaashi iyo Alexis. sidaas ayaana lagu kala nastay qaybtii koobaad ee ciyaarta. markii dib la iskugu soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa MCC galabta waxa ay u ahayd maalin aad u qurux badan maadaama laga dheehan garay firfircooni iyo weliba isku dhiibasho kubadda ay wada soo bandhigeen, waxayna mar kale ciyaarta ay ka dhigeen 3-0 gool uu dhaliyay Faisal Xasan Xaashi oo galabta u muuqday inuu yahay ninka garoonka ugu ciyaar fiicnaa. bandhiga goolasha ee kooxda Muqdisho City Club waxaa gool afaraad mar kale u dhaliyay Benteke, halka uu ciyaartana uu soo gabagabeeyay oo 5-0 ka dhigay ciyaaryahan Qays. sidaasina ayay ku dhamaatay labadii qayb ee ciyaarta 5-0 looga bashay kooxda kubadda. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay ka fiirsanayso in ay suuqa xagaagan u dhaqaaqdo kadib kooxda Manchester City ee Leroy Sane, iyadoo kooxda reer Talyaani ay si taxadar leh ula socoto kasoo kabsashadiisa dhaawaca. Bayern Munich ayaa sidoo kale lala xiriirinaya Leroy Sane, waxaana warku ay sheegayaan in uu xiddigani heerka caalami ee dalka Jarmalka uu Bayern Munich ayaa sidoo kale lagu xiriirinaya Leroy Sane, waxaana warku intaasi ku darayaan in xiddigan heerka caalami ee dalka Jarmalka ku dhawaa in uu u dhaqaaqo horyaalka Bundesliga Jarmalka si uu ugu ciyaaro kooxda Bayern Munich. sida laga soo xigtay Inside Football, Juve ayaa qiimeynaysa haddii ay kula tartami karto Bayern Munich saxiixa Leroy Sane, kaasi oo weli ka soo kabanaya dhaawac daran oo soo gaaray xagaagii hore. warbixinta ayaa intaasi ku daraysa in 24 sano jirkani uu haysto fursad uu kaga tagi karo kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo kooxda Bavarianka la tilmaamayo in ay meesha ku doorbidayso in ay iyada qaadato. Sane ma uusan ciyaarin hal daqiiqo kulan ka tirsan Premier League xilli ciyaareedkan kadib markii uu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka intii lagu guda jiray kulankii bardhamaadka tartanka Community Shield. si kastaba ha ahaatee, xiddigan garabka ka ciyaara ayaa ku dhow in uu ku laabto dalka uu ka soo jeedo ee Jarmalka, waxaana laga yaabaa in uu safto kooxda uu hogaaminayo macallin Pep Guardiola bishan. abaalmarinta Sports Culture ee Barcelona Award. abaalmarintan dhaqanka iyo isboortiska Barcelona ayaa la siiyaa dhammaan shakhsiyaadka ciyaaraha noocyada kala duwan kuwaasi oo wax muuqda ku soo kordhiyay magaalada Barcelona. Lionel Messi ayaa musharaxiinta abaalmarintani ku soo galay maadaama uu markii 6aad ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ah ee Ballon d'Or ee la siiyo laacibka adduunka ugu fiican, waxaana kaloo liiskani ku jira xiddiga ugu dheereeya tartanka baaruurista ee Carlos Sainz.
xulashada cidda ku guuleysan doonta abaalmarintan sanadlaha ah ayaa waxaa u dhacdaa laba nooc. Tan hore waxaa qiimeyn doona guddi ka kooban suxufiyiin caan ah iyo weliba guddi kale oo madax bannaan, halka qaybta labaad lagu casuumi doono dhammaan xubnaha isboortiska iyo dhaqanka Barcelona, waxaana kadib cod kama dambeys ah loo qaadan doonaa qofka ku guuleysan doona abaalmarintani. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa waxa uu ku dhawaaqay liiska xidigaha kooxdiisa Real Madrid ee ka qayb gali doona kulanka Real Sociedad ee Copa del Rey. Macalin Zinedine Zidane iyo wiilashiisa kooxda Real Madrid ayaa waxa ay habeen dambe kusoo dhaweyn doonaan naadiga Real Sociedad garoonka Stadium Bernabeu Stadium si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan tartanka Copa del Rey. Zinedine Zidane ayaa liiskan ugu yeeray 19 ciyaaryahan ee ka qayb gali doona kulankan Copa del Rey, waxaana liiskani ka maqnaan doona xidigaha Eden Hazard, Gareth Bale, Casemiro, Lucas Vazquez, Marcos Asensio, Marino Diaz iyo weliba Daniel Carvajal. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa usoo xushay 19 ciyaaryahan inay uga qayb galaan koobka Copa del Rey ee Real Sociedad. Courtois ayuu goosh usoo qaatay iyo weliba Altuve, halka qadka dhaxan usoo qaatay Militao, Sergio Ramos, Rafael Varane, Nacho, Marcelo iyo Mendy. Qadka dhaxan waxa usoo qaatay Toni Kroos, Modric, Valverde, James iyo Isco, Benzema, Jovic, Ibrahim, Vinicius iyo weliba Rodrigo. Ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa shaacisay liiska rasmiga ah ee ka kooban 18 ciyaaryahan kuwaasi oo uga qayb galaya kulanka Atletico Bilbao ee Copa del Rey. Barcelona ayaa soo hogaaminaya shaxdeeda Lionel Messi iyo Griezmann. Haddaba kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa 18 ciyaaryahan usoo xulatay in ay uga qayb galaan kulanka Copa del Rey. Golhaya Ter Stegen iyo Bale ay soo xusheen, halka difaacan ay soo qaateen Semedo, Bigay, Lenglet, Umtiti, Alba, Fibro iyo Arju. Dhaxdana waa Rakitic, Busquets, Arthur, Roberto De Jong, Claudio Rigue iyo weliba Vidal, halka weerarkana ay iska garab ciyaar doonaan Messi, Griezmann iyo Ansu Fati. guud ahaan warkii subax intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Warka aniga idin soo saaray, aniga ayaan la socodsiinayay. Haddii aad ku cusub tahay saaxiibayaal, si sharaf waxaan kaaga codsanaynaa inaad subscribe saarto YouTube channelka